بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض وضيال إذا لهانتين به ميل والبو ضافها عالم كجوجتان waxaad ku soo dhawaataan barnaamijad kala socon doontaan shaashada telefishinka caalamiga Nabad TV xarunta dhaxan ku leenahay magaalada Jijjiga barnaamijkan oo la magac baxay dooda Nabad TV waanu toddobaadkan kaga doodi doono maxaa sababay guurka qaaliyoobay hadii soo marba marka ka sii dambayso guurku sii qaaliyoobo ayuu ku yeelanayaa saameyn aad iyo aad u badan ayaanu ka doodi doonaa toddobaadkan daawadayaal waxa igula sugan stuudiyaha Nabad TV dhalinyar aad iyo aad u kala duwan oo laba iyo dhidig iskugu jirta aqoon-yahanaa culimaawidiinka iyo waalidiinta kala duwan ee ka kala socota magaalada Jigjiga aan ilaahdee hadalman kuma jiro barnaamijkeena ayaynu gudagali doonaa xagan baan ka bilaabayaa Axmed bal hada adigu maxay kula tahay inuu sababay guurka qaaliyoobay maxaa sabab aynu guurka qaaliyoobo bismillaah marka hore aad baa u salaamantiin dhammaan marti sharafta qiimaha badan meeshaas kugu timiday iyo daadiyaasha barnaamijka iyo bahda Nabad TV haddaan su'aasha u gudbo maxaa sababay guurka qaaliyoobay mid kalena waan si raacay yaase sabab u ah oo ma taqaanay loo aanaya inay sababaan horta sidaan ognahay waqtiga isbedelay guurka waxaan kolka horeysa sabab uga dhigayaa in qaaliyowga guurka waqtiga isbedelay baa dhaqankiina bedelay marka hore waqtigu de ma canaan ma laho waqti wiligiiba uu isbedeli jiray oo mid cusub ma aha caadiyan laakiin waxa cusub oo hadda inagu cusub inuu dhaqanka bedelay oo uu dhaqanka uu saameyn ku yeeshay oo aad moodaba inuu waqtigu dhaqanka uu hogaaminayo ummad islaam baynu nahay ummad kastaana oo caalamka ku nool dhaqan bay leedahay dhaqankeeda way xajisataa wayna ilaashataa dhaqankeeda balse inaga dhaqankeenu maadaama ummad islaam nahay wuxuu ku saleysan yahay diinta islaamka meel laba kama hor yimaado wuxuu la jaan qaadaa waa diinta islaamka weyn marka dhaqankan uu bedelay baa horta marka horeba dhibaatada wax weeyaan ayaan ku ceebeysanahay oo dhaqankan uu waqtigu qaatay taasana oo aanan karaa inuu sababay guurka qaaliyoobay hadii aan ma taqaanay u soo gudbo ayaa loo aanan karaa inay sababtan ay ku lug leeyihiin saddex geesood baan ka dhigayaa waalidku lug bay ku leeyihiin habluhu lug bay ku leeyihiin wiilashuna lug bay ku leeyihiin tusaale oo kale gabadhii iyadu meel bay qabsanaysaa oo waxay leedahay intaas oo lacag bay kolka horeba ku doodaysaa ku andacoonaysaa ma wiilka ay ku xujeynaysaa wiilashii sidoo kale in diidaysa marka ka maagaysa oon haysan oon dantii ay ciilaysana way joogtaa in ma taqaanay iyagu ficliyan u galay oo ma taqaanay wixii haya in way jiraan kuwaasina waxaan leeyahay iskeelka wiilasha kale ku dalacayaano de iyaguna wada cusub bay furayaan oo iyaguna ammaan had ka heshaan bay leeyihiin de dad badan oo xilliga hore u soo fadhiinay dib u kacayaan oo halka dhibaato horta iyada ka imanaysa habluhu taasay ku leeyihiin wiilashuna dibta waalidiintu kolka uu wiilku uu gabadha la heshiiyay gabadhinta waalidka u tagtaa ay tiraado aboy ama hooyay waa la imanayaa xaafadii ninkaasana la soo heshiiyay lacag inta dhan baan kula soo heshiiyay isagu ma oranayo lacagta inta dhan idinkii lacagtiini tahay idinku isticmaala waayo uu og yahay inuu isaguna ku manaafacaadin iyagina ay ka baxayso magaalada Jijjiga dhan lacag loo qaybinayo horta wax faa'iido ay leedahay ma jirto magaalada Jijjiga dhan baa lacagta loo qaybinayaa waalidkii marka inuu ku fikirayaa isaga laftigiisu hadii labadan kala soo khaldamay inuu isugu bar qabto uu yiraahdo de lacagtan aad ku ciyaaraysaan idinkaas kale haysta oo wax ku qabsada ninka waxa laga yaabaa 500 oo kun isagoo haysta ba wuxuu ku kharash gareynaya inuu gabadh guursado oo waliba doonitaankii hore ah markuu doonitaanka uu ku doonto gabadhii soo hooyinta dambe isagana dhibaato galayayo hadana kharash leeg buu galayaa waalidkiina waxa arkaysaa hooyadii iyo meelaha wareegayso diiqa raadsanayso waxa waa gabadhii u diiqaan la yeelay intii loo geeyay in la eeg ba iyadina ka baxaysa isagiina kharash baa ka baxay waa laba burbur weey anoo siyara wata waayahay Axmed waan kugu soo laaban doonaa waxa tiri waalidka iyo rag iyo dumarkuba way ka mas'uuliyiin waan kugu soo laaban doonaa Mas'uud igu dhib هيا مسعود maxaa sababay guurka qaaliyoobay بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا كفى إذا سنة وقتي كوبان أنا هايستو مرك كوبادو حنوم هذا علنيا النبتي في ساق روح بدن النوس عسنتي كجذالو حنوم هذا علنيا ولا لا إذا أنا بحوذاك تكون هاي دودا waxaan rajaynayaa mid khayr qabtay inay noqoto kulay mawduucan maanta laga hadlayaa kulay uu sabab badan yahay siyaabo badan waa loo qeexi karaa dhinacyo badan oo taabanaya oo waa mawduuc aanan runtii la oran karin wax laga gungaari karaa muddo kooban ama daqiiqado kooban gudaheed
hase ahaatee insha allah waxaan isku dayayaa bal intii waqtigu noo saamaxo inaan anaguna aan yar korkaxaadsi aan samayno oo bal xagano si aan usoo dhacsano bal doodan mudhaheeda insha allah anu laba siyaabood baan u aanaynayaa horta guurkan qaaliyoobay wuxuu soo bilaabmay 2007 ilaa iyo 2020 hadda aan marayno muddada intaa leeg ama muddada intaa u dhaxaysay waxaan qiyaasi karaa inay tahay 13 sano u dambeeyay bal iska badha 10 sano u dambeeyay 2010 ilaa 20 haddii aan idhaahno waxa sababi kara globalization kan horta aan galnay saaxadan cusub ee casrigan aan galnay horta wuxuu wataa saameyntiisu wataa oo waxa isbedelaya markasta oo isbedel dhaco waxa isaguna saas la mid isbedelaysa baahidii jirtay waqtigaas oo waxa bilaamaysa baahi horle iyo jawi cusub baa bilaamaya saddex siyaabood baan u aanaynayaa saddex siyaabood inuu aanaynayaa waxa weeyaan mid waa waqtigan oo horta isagu isbedelka keenaya oo inta badan gabdhuhu waxay ku andacoodaan waqtigii hore ay soo qabsadaan marka la yiraahdo maxaad ugu qaaliyeyseen waxa dhaan 100 geeli waxana laga bixin jiray intaas isbedel baa dhaco maanta 100 geeli ma joogaan oo xaafadul berri baa ku xiran riin laga keenana ma ogolo gabadhii talabaad waxaan u aanaynayaa waxa weeyaan waa dumarka oo gabdhaha jooga 2007 ilaa 20 baa waxaad moodaa in iyaga laftirkoodii naftoodii kalsooni ku qabin sababtan ugu aanaynayaa wax kale ma aha comparing with others bay sameynayaan oo gabadh maanta haddii la soo doonto gabadhaas waxay eegaysaa arooskii ku horeeyay sidoo qabsoomay ama waxay leedahay hiblaayo saaxiibada ahayd sidoo arooskooda igu qabsoomay hiblaayo haddii nin hanti la soo doonto ugu qaleeyay guurkiyo qurbaha ka yimid de masaakiinka yar dalka jooga 5 kun ku shaqaysanayay baa halkaas saaxadii ka baxay isaguna kadib gabadhani ma oran karto intay defense garayso anigu xaq waxaan u leeyahay qofkan aan calmaday inaan la noolaado noloshu doonayo wixii macquulan ay ku xidho laakiin waxay ku xidhaysaa xitaa wiilkii inuu awoodin ama ha awoodo laakiin waxay ku xidhaysaa shalay toolaaroskii ay ka qayb gashay mid ka sii qurux badan inay dhigato kana waxa laga yaabaa qofkan awoodin tayaga shayga saddexaad inuu aanaynayo waa waalidka laftirkiisu dhaliisha soo galayayo waqtigii hore waxa la isweydiinayay in ayo weeyaan waa ninkii reer hebel balorni laakiin maanta marka shayga ugu horeeyad ku tiraado hooyo gabadh baan guursanaya ama marka tiraado aaba gabadh baan doonanaya ama wiilkii gabadhii ku tiraado reerkii hooyo nin baa soo doonaya muxuu ka shaqeeyaa la weydiinaya su'aasha koobaad hadduuna shaqeele ahayn maxaa lagu falaya yaa u maqan kana shaqeeyni waay talabaad lama oranayo muxuu awoodayaa muxuu ka keenayaa la weydiinaya waa dhaliish waa carqalad labaad ee jirta taas bal ee waxa dhacaysa mararka qaarkood in la yiraahdo reer hebel weeyaan oo isma geeyay nagada labadii qof ee isku baahnaa ee halkaas iyaguna ay isu bay hoofaan in badan baynu garanaynaa in la yiraahdo whisky waa inuu reer hebel iyo reer hebel baa la isku diiday ama way isjeclaayeen waa in hebel baa loogu diiday waayo mas'uud hadalkaaga ugu dambeeya waxa weeyaan waalidkii baa eedalay aanu saddexdaas aanu aanaynayaa umal khayray waad maqlaysay doodii ka horeysay bal hayaada adiga maxaa u sabab inuu guur ku qaaliyoobo maxaad kaga jawaabi lahayd doodoodii hay hodanay laba siyaabood ma aananaya guurka sababta qaaliyeysay horta markii hore hablaha waxa laga bixin jiray 100 geeliyo baar qabkoogii farasiyo waqtiga wixii ugu qaalisanaa hadda waxaaban isleeyahay in rag yar jecel bilaabeen gabadhu way u qalantaa dabcan in inta ay ka badan ba laga bixiyo sidoo kale casrigii isaguna waqtigaas sariir ma jirin dabcan sariirtii baan maanta ognahay halkay maras waxaan leeyahay waalidiinta wax loo aanaya ma jiro dabcan labada qof waxay ku soo heshiinayaan bay ku xiran tahay dabcan nin isagu lacagtii haysta ayaa markuu inantii ka dalbato wixii uu oranaya waan ka bixinaya taas baa rag caqabad ku noqon soo iyagu baa iskugu cambaan anigu leeyahay gabadhuna way leedahay dalbashada ama qofku markuu ku weydiiyo maxaan ka keenaa dabcan waad sheeganaysaa waxaad gabadhna ma ogoleynay qiimaheega hoos u rido hadalkii mas'uudan oo sii daba socda hablaha ayaa u sababa everything hablo waxa u sababihiin ma jirtaan anigu aaminsanahay inta ay ka badan oo qalmaan in laga bixiyo marka ragoo jeclada la iska daayaan leeyahay oo muhanni noqda oo waxa la bixiyaad leedahay waayahay sheekh Cabdullaahi waan ku soo dhaweynaya hay Cabdullaahi wad maqlaysid doodihii ka horeeyay bal hadda hay adiga bismillaahir rahmaanir rahiim ana waxa leeyahay Cabdullaahi Faarax Axmed aad baad mahadsantiin dhamaantiin anigu laba arrimood baan u sababayaa kow dadka oo diintii iyo barashadii iyo dhaqankii ka fogaaday qodobka labaad waxaan taageersanahay gabadhaasi waxa iska leh eedda ragga baan leh dhalinyarta ayaa eedda iska leh laba sababood baan u sababeynayaa kow
marka hore inuuna awoodiisa iyo tabartiisa una gabadha kula soconin waxaan qabaa gabadha haddii aad ku tiraahdo awoodeedu waa intaasi tabarteedu waa sidaasi waan isjecel lahay inaan ku guursadaan rabaa waxaasaanan qabanayaa intaa unba u gudbinaysaa waalidka iyadu nin noocaas ay soo doonaya saa iyo saasa laakiin markaan ku dhaha gabadhii anuu nin bele ka dhacdaan ahay cirkii dhulkan kala hayaa informationkaas haddana gudbinaysaa nin bele ka dhacdo cirkii dhulka kala haya isoo doonaya waxaan leeyahay markaasi practicalna waanu aragnay gabadh lala hadlay oo layidhi tabarteedu waa sidaasoo ogolaatay iyo tuba la iskaga dhigay oo iyaduna da codsatayntii marka waxaan leeyahay waalidkuna aad male gabdhuhuna aad male laakiin dhalinyarta ayaan leeyahay waxay ku dayanayaan nin dee ay u saamaxday fursaddii ama waalidkii dhaqaale haystaan ama meelaha isagoo ha ka boobee ayuu isleeyahay hebel aniguna gabadha waxaan leeyahay waxaan anigu wax kaa keenaya wax kasta been waa lagu xerogeliya runna waa lagu dhaqaa isagoo ka duulaya marka waxaan leeyahay wiilashu markay guur damcaan iyagoo bayskooda ka duulaya ha u sheegaan shaqadooda awoodooda dhaqaale inay dhaqan doonaan hadda laakiin jeertan hore in wuxuu isla hayaa uu iska yaryahay waxaan isleeyahay hadday raggu reality ka shaqeeyaan oo marka hore run ay ku bilaabaan gabadhanna markay u sheekeynayaan ay guur ka rabaan xaqiiqdoodana ay ka duulaan wax culuslaanaya inuuna jirin baan u malaynayaa xataa waalidku hadduu caqabad keena waan aaminsanahay gabadhii oo uu ku yidhaha ilaa uu lacag keena mooyaan iyada iyo isagu hadday isku qancaan netka inta ay isku guursan hadday iyaga ku qancaan waxaan hubaa inuu waalidku ku qasbanaanayo sida gabadhiisu ay jeclaatay marka waxaan leeyahay anuu wiilashu haysa saxaan oo ha ka duulaan waayahay marka waxaad leedahay wiilashiibaa eedda iska leh iyagu oo guurkii inay qaaliyoobaan u sababa ha isaga wax kala sheeganaya waayahay waxaan siinayaa ismaaciil haye waxaan marka hore salaamayaa bahdatii naba t v iyo inta dooda walaalahay aan kala qayb qaadanayo waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya magaca waalidka horta soomaali baynu nahay dhaqan baynu nahay iyo hidde soo jireena waynu dhaqan habownay soomaaliya waxaa ka koobnayd laba qaybood uun xoololey iyo beeraley maanta dhaqankeenii qomiyadaha kale way ku faanaan laakiin inagu waynu ka faanaa intaa maanta soomaali ee degan jigjiga nin keliya oo dhaqankii uu ka soo jeeday ama gurigiisa ama isaga ay ka muuqata midna inaguma jiro sidaa aynu dhaqankeenii u lumay guurkiina u habaabay marka waalidku cidda isguursanaysa waagi hore waa la hidiraaci jiray wiilka waalidkii baa u dooni jiray cidda uu guursanayo oo uu yaqaano isirkeeda iyo dhaqankeeda iyo habnooleedka iyo qoyskay ka soo jeedo hooyaduna saayas lamiday ahayd oo gabadhana reerka dhalanayna gabadhoodu meel fiican oo ay garanayaan oo dhaqan iyo raadin jireen loo wiili gabadh baa loo sahan tegi jiray maanta laakiin waalidkii waqtigaa waalidka gacantiisa ku jirtay wax waliba maanta waalidka gacantiisa way ka baxday dhaqankiina faruu ka baxay waxa isteerinka haya waxa weeyaan dhalinyarta rag iyo dumarba waayahay marka ismaaciil maxaad u aaneynaysaa ayadu aaneynaysaa waxaan u aaneynayaa waxa iskale ragga ayaa iskale dembiga sababtaa waalidka waxa loola imanayaa un agreementii la soo galay unbaa leeyahay saxiixa u dambeeya ku dhufo waay ismaaciil waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa dhalgobeed fadxay waad maqlaysay doodihii kala duwanaa ee dadkii kaa horreeyay ay ku doodayeen haye bal hadda adiga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka koowaad marka labaad doodan waxaan leeyahay anigu oon ka aaminsanahay inay sabab u tahay inuu guurku qaaliyoobo ma aha horta ha ka qayb qaato waqti oo waqtigu isbedelay waxaa sabab u ah ragga ha noqdo inaan dhalinyaro ah oo gabadh doonaya ha noqdo aabbo isaga laga soo doonayo oo bixinaya ha noqdo aabbo inanka u doodanaya wiilkani markuu isagu gabadha uga sheekeeyo wax aanu ahayn reerkoodii waxay ku qasban yihiin waxbuu uga sheekeeyo waxaanu ahayn buu iskaga dhigay waxaanu awoodin oo u sheegay isla wixiiba iyadu rabtaa bis khalaas qiimaa la goostay wuxuu reerkoodii ku qasbayaa inay isla wixii keenaan ma dhahayaan aabay naga daato intaas aan kugu reen baad heli manaamin iyagu ma odhanayaan way soo raadinayaan lacagtii si lagu keenaba waa la keeni aabbahan qaadanaya isma dhahaya halkee laga keenay isagoo laga yaaba inuu yaqaanaba reerkan qoyskan gabadha kasoo doonaya iyo tabartooda haddana lacagta intaa leeguu qaadanayaa markaa raggu ayaa u sababa ayaan leeyahay si kastaba haatee wax gabadha oo shaqo kula guur inuu qaaliyooba ma jirto gabadh way isqaaliyeysaa laakiin maxaan dhahdaayay haddii lasii wadwado
runteeda ayay tagtaa. way fadxay markaa waxaad leedahay waxa u sababa ragga waxaan siinayaa Muscab haye doodan aan todobaadkan kaga doodanay maxaa sababay inuu guurku qaaliyoobo Muscab waad maqlaysay dadkii ka horeeyay maanta waxa la yiri ragga u sababa inuu guurku qaaliyoobo haye adiga بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي واحد مودا waxaan maqli jiray madaxay mujisme gaadhaan misawaa sheekadan oo kale waxaad moodaa dhankii ay dhaliishaba ay ahayd ama xaqiiqada isugu soo biishubinaysay oo ah shakhsigii la guursanayay iyo ciddii bixinaysa waalidkii iyo haweenkii ah inay aad isku difaacayaan laakiin waxaad maaha taas macnaheedu in xaqiiqada la dabooli karo casrigan iyo waxaan marka laga yimaado maantada haddaan ragnahay geela laftiisii baa dib loo soo dhaqi karaa eedinka laftiina xujaa laydinka rabaa xujo ayaa laydinka rabaa gabadha marka lasoo ninkuu soo doonanayo gabadha gabadh waxay ahayd amba baxsan maxaan uga jeedaa aan gunta u dhaadhaco gabadhu markay dhalato ayaa dhaqaale ambaqaad wax loo sii samayn jiray maalintay gabadhu gashaanti tahay guri laba daryaalo ah oo wax kasta leh maacuuntii leh adduun leh ayageedu lahaanaysay habeenka hooyinteeda ay tahay carooskaygu dhaca calafkayga ay qaadatana guri loo raadinay ma jirin gurigeedu ay hanti u lahayd ayaa la geynayay laakiin maanta haddii tiima jirto gabadh guriga aanan nololba waxba ka garanayn baa lagu leeyahay intaasoo milyan ka bixi markuu ninkii lacagtii uu bixiyo ayaa haddana alaabtiibaa sii dul taallo hooyintiibaa laga rabaa guri buu sharaxayaa waa laogyahay maanta haddii ay sabanadii hore wax waliba isla degaanka nolosha amase ay ku nool yihiin ay isku filnaansho jiray ma jirintii maanta tan ma jirto ama beeraley ma jirto waa beeraleydii iyo dhaqatadii iyo xoolihii iyo dunida la raacan jiray maanta waa laga tego casri baa la joogaa haye waay bahalka jacayl waa imtixaan laftiisa iyadu aanaynaysaa inuu maxaa uu ka dambeeyo guurkan qaad inaan xataa ka go'an qaadan laanahayba haweenkaaba noogu wacan baan leeyahay anigu oo waalidkii waxaan u aanaynayn haddii ay gabadhii tiraahdo aabbo wiilkaas baan wataa aan kartoonna wada seexanay ducada nagu dar hooy xalaalaan doonaynaa waalid intaa dhaafinaya xaqiiqatan ma jiro waxaan siinayaa asma haye waayahay asmaay adigoo maqlayay doodihii kaa horeeyey bal haye adigu maxaad kaga jawaabi lahayd maxaa sababa inuu guurku qaaliyoobo yaa se sabab u ah bismillaah marka koowaad ilaahay baa mahad leh isku kankanayno ka nabad iyo deegaanka nabad marka xigta waxaan islay mawduucayga aniga waa fikir ahaantayda isku dayasha sabab ah waayo dhulka waxaa jira meel biyale iyo meel aan biyo lahayn nasiibkuna saas bini'aadanka isku mid ahayn waa inanta jaarkayaga haddii intaasoo milyan laga bixiyey aniga inuu nasiibkaygu lamid ahayn baa dhici karta marka anigii oo inaan la nasiib ahayn garanaya iyo haddana ku adkaysanay inaan intii xaggii oo kala gaadho marka waxaad is odhanaysaaba dadka isku dayasha dhibtay ee haddaan ku qanacsanaan lahaa noloshana ilaahay baday noloshu way hagaagi lahayd marka isku dayashadan iyo mushkiladda keenaysaba marka hooyada waxay ku odhanaysaa waa inaa ina hebel sideedoo kale lagu soo doono inaa ina hebel sideedoo kale lagu hooyo hebelkaasaaba dadkii dhibayba labadan qof ay isjeclaaday haddii siday isku doonayaan loo dayn lahaa noloshu way hagaagi lahayd marka haddii dad kale soo dhex galeenna waxaan leeyahay saasaa sababtay waad maqlaysay mukhtaar doodihii kaa horeeyey inta badan waalidka baa la yidhi ayaa eeda iyo waxay socotaa wiilashii markaa waa danaysiyo markuu isagii wax doonanayana waa haye markaa aduu doonaysana waa lagugu kicinaya waa sare ukac baa ku yimid waayahay nimcaan siinayaa maxaad kaga jawaabi lahayd nimco بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام دور تصيف عبا وسعتها هاوشون هاول يرماها واي مركي للي رير هلا ديسو وبيادنو بلشدنو لابوري وي وبيردنو لفلي أنا waxaan u alaynayaa saddexdaas waxay kala yihiin horta midda koowaad waalidka iska leh talabaadna culimada iska leh saddexaadna waxay maamulay dawladda waqtiga jirta iska leh
sababtoo ah gabadhu iminka tusaale ahaan gaari gacanka 3 lugood buu leeyahay dhexda ku jirta wixii dhexdii waa la adeegsanayaa labadii lugoodna waa lagu istaagay taayirkiina wuu wadayaa wiilku markuu leeyahay gabadh baan rabaa waa taayirkii inuu gabadhan watuu rabaa yacnihii bulsho dhanna uu abuuruu rabaa waa meesha awlaad baa laga rabaa labadii uu ku istaagayna midna waa waalidkii midna waa dawladdii gacmaheena waa iyaga laftirkoodii oo culimadu diintu wax kasta iyada hogaamisa waxa weeye haddii diintii laga tago inuu wax qaaliya inuu jaban yahay lama kala garan karo waa caalamka birbirayaa lala raacaya haddii dawladdii iska ilowdo dadkii ay mas-uulka ka ahayd iyadana waa dhibaatadeeda sababtoo waa loolan adag oo dhexeeya waalidkii labadii waalid ee wiilka iyo gabadha iyo wiilkii iyo gabadhii dawladda hadday soo dhex gasho iminka godayo kale tusaale ahaan waqti waxa jirta guurka la cayimay oo la yidhi gabadhii intaa lagu doono wiilkii iyo gabadhii iyo labadii waalid oo isla dhuumanaya iyadoon culimaa diinba la eegin bayaankii ay soo saareen waa lagu dhaqmay wax badanna waa u qabatay dawladdu marka hadday seexato iyadana dhibaatadeeda leedahay waalidka laftirkiisa culays buu leeyahay sababtoo waalidkii gabadhna uu dhalay wiilna uu dhalay maanta hadduu gabadhiisa qaali ka dhigo wiilkiisiiba taagan oo gabadh kala doonanaya tiibaa iyadana lagu qaaliyeynaya marka waa iska soo horjeed weeye marka gabadhu iyadu mar kasta waa ta wax loo baahan yahay weeye marka kii baahi qaba waxa weeye baahidii gabadhii sidee ku horumari kartaa oo fidnadii iyo wixii kaga istaagi karta saddex qof aynu aananaya marka waa dawladdii iyo culimaadudinkii iyo waalidkii مسعود بان سينيا magacaygu waa Mas'uud Farxaan Axmed markii hore aan ilaaway xisaabtii waxa lagu soo foorariyay dhalinyarada say u soo socotay labada waalidii waxaan u jawaabayaa iyo sheekhaas koofiyada xiran iyo walaashay garaadkaaba rakaabayna ahaatay hayde iyadii baa dumarka waxay u aaneeyeen in ay guurka qaaliyoobay ay sabab u yihiin dhalinyaradu sababtuna ay tahay inaynan runta sheegaynin labada waalid iyo walaalka iyo gabadhaas afartoodaas waa isku mabda sababta maxaa keenaysa ma isweydiiyeen gabadhii horta qofku waa bini aadan wax uu jeclaan karaa oo dareenkan ilaahay baa ku abuuray qof waxan waa wax ku dhex abuuran maaha wax sidii wax ugu soo degaya wax marna imanaya sida jiilaalka iyaguga isku bedbedelayaan wax isku bedbedelayna maaha laakiin waxa dareen qalbiga ilaahay qofka bini aadanka markuu dhashay ilaahay ku abuuro wax uu jeclaan karaa qofkii haddii uu jeclaadana ceeb maaha salaada gabadhaas hodan baan ka helay gabadhaasi markaan qof walba taybuu jira waxuu sitaa criteria ama sifooyin uu jecel yahay qofka uu nolosha la wadaagayo inuu ku dooranayo waxaa laga yaabaa inay gabadhaasi buuxisay taybkii aan ku dooran lahaa inay akhlaaq leedahay dhaqan wanaagsan leedahay dan maanta dhibaatada ugu weyn waxa wada waa dumarka waayo taleefankeedaas ugu jiraan mar walba waxay la socotaa waxay yiraahdaan gabadhi kuna maxay tahay kuna la sheekaysto kuna ka raacdaa iyada laftirkeedu kalsooni darro heer ay ka gaadhay ba ani kaliya uma kalsoonaanayso waxa isku dayaysaa inay dhowr qof oo kala soo marto isku kaya duldisho hal dhagax dhowr shimrood dul weeyaan waxoodu anigi waa inaan sameeyaa marka gabadhaasaan ku helaa haddaan been u sheegay xaqiiqadii inay ogaatay iyadu weeyaan waayo laba qof oo meel ku wada nool baan nahay magaalaan ku wada joognaa waxaan ka shaqeynay arkaysaa haddaan arday hay waan arkaysaa wax walba oo sheeganay in indhaheedu iyo aqligeedu shaandheeyaan weeyaan hadhow toole markay timaado tii dhabta ahayd ay israahdo maanta gabadhan waa doonan kartaa een u sheega tamartayda ilaa marka shay khiyaali uu ka imanayaa shay marka guur soo gaadho runtii baa imanaysa waa inay iyadu tiraahdaa oo waxii qabsoomi kara waxaad arkaysaa doonashada 200 ama 300 baa la keenayaa gabadhii maalinka la iguma soo darayo waa inay xaafadoodii dib 200 oo dambe igu soo diiqlayeen gabadha soo raacin lahaa ay soo barbariyaan maxaa u diiday inay inta iyadu igu tiraahdo noloshan aan rabnaa inaga dhisanayne labada waalidan ka ducayno waxay idin haysanaa guriga iyo alaabtaan ku dhisano ma oranayaan waxay doonaysaa inay hiblaayo herooska halkii loogu tuma anigana iga tun marka Mas'uud aad waxa taageeraysaa in hablaha runna been waa lagu soo xirigeliyay runna waa lagu dhaqaa laakiin dhibaatada oo dhan dumarka leh waayo iyaga nagu kalifayay inaan been u sheegno annagoo ku iimaan qabnay iyaguna la dhaafsan way Mas'uud waa kugu soo laabanaya garaad kaaban siinaya waxaad moodaaba inay eediba waalidkii saaran tahay waxaan aaminsanahay bilif garanayaa labada qof haday iyagu isku soo mowqif noqdaan arinta waalidkii waa loo imanaya waalidkuna ilmihiisa farxadiisa lacag kuma doorsanayo dabcan inamada hablihii la wada saaraya inanku marka uu inanta ka dalbayo ma qasbayo dabcan iyaduna marka ay ku leedahay lacagta qasab isaga ayaa
laakiin haddii uu xaqiiqada nolol maalmeedkiisa iyada taabsiiyo dabcan runta laguma kala tago laakiin beenta waa lagu kala dheeraadaa in badan markay ku odhanayaan inta guri baan kuu dhisayaa sida noloshana kugu noolisanaya gabadhi dabcan waa daacad run bay moodaysaa laakiin xaqiiqada marka ay timaado rag iyagaa baal maraya waayo umal khayray hadalku yiri ee ahayd in 100 wiil aad taleefankii ku haysataan oo isagu uu sababtaa darteed iyo jacaylkaaga uu sameeyo hay waa bacda ay qabaan baan aaminsanahay rago sheekh cabdullaahi waan siinaya bismillaahir rahmaanir rahiim si fiican bay u socotaa aad baad u mahadsantihiin walaalaha mas'uud baan rabaa inaan u jawaabo wuxuu yiri waa inay iyadu ogaato gabadhu haddaan been u sheegay oo aan rag la tartamayo waa inay iyadu ogaato buu yiri ana waxaan qabaa arrintaas inayna sax ahayn waayo qofkan uurkaaga ma oga mar walba waxay samaynaysaa gabadha xidhiidh waalidkii baa la samaynaysaa asxaabtii baa la samaynaysaa waxa ay gudbinaysaa mar walba waxa weeye waxa adigu aad tiraahdo haddii maanta aad tiraahdo dhinaca kale aan ku yar noqday mas'uud waxaan ugu jawaabayaa oo kale haddii aniga uu iga dhab yahay oon shuurli hubo waxa inuu dhab iga yahay waxba inaan rag kala gargareeyo inay la sheekaysatay inuu sheekaysay iyo waxba ani kulli wax iga galay ma jiro waa haddii anigu wadadan ku socdo sax tahay oon gabadhan rajo saxa ka lehay iyadu ima lahan intaas ragaan la sheekeeyaa kumana arko rag la socda ama rag soo doonaya inaan anigu kalsoonideeda qaato weeye dhinaca gabadhan guurkeeda ah iyo dhinaca dhaqaalahaygaba inaan anigu kalsoonideeda qaato weeye marka waxaan leeyahay dhalinyaroy barnaamijkan dhalinyartu 100% iyagaa sixi kara qof walba kalsoonidiisa uu gabadhan ku qabo marka hore inaga laftarkeenu ragga laftarkeedu waxay jiraa way iska sheekeen iyaguba oo waxaa laga yaabaa isagoo 2 iyo 3 kale shurli waa shur weyd taasi way jirtaa laakiin muhiimaddu waxa weeye labada qof ee israba waa inay iyagu isku kalsoonaadaan waliba ninku dhaqaalihiisa iyo cidda uu jecel yahay hal masalo waxaan ugu jawaabi walaashay oo tare culimo oo diinku qayb ay ka yihiin guurka qaaliyoobay arrintaasi waxaan leeyahay culimo oo diinku af labadiiba dhawaaqayaan mar waliba waa laga yaabaa marka ashkhaasta shakhsiga iyo anu shakhsi baan tusaale ahaan labiska culimada waan xidhanahay aayad iyo xadiisna waan ku hadli waa laga yaabaa meelo badan oo ka muxaadara in la arko la ictibaaro culimo in lagu daro taa macnaheedu kama dhigna qaladka anu aan sameeyey culimadii iyo diintii baa samaysay culimadu mar walba diinta islaamku waxay dhiirigelinaysaa oy waalidka la hadlaysaa raggay la hadlaysaa gabadhana way la hadlaysaa diintu waalidku waxaa laleeyahay markuu idin yimaado nin noocaasa shuruud kale idinkuun ku xidhin u guuriya gabadhiina gabadhii waxaa laleeyahay nin noocaasa markaad aragto guurso ninkiina waxaa leeyahay gabadh noocaasa tilmaamaha leh markaad aragto guurso marka waxaan leeyahay culimmadu way dhawaaqayaan intaa way ka hadlayaan iyaga waxaan isle eedda waan ka leexinayaa waan isleh dhalinyartan eed oo dhan saarayaa dhalinyartuna waxa saxan sheekh cabdullaahi yow bacdii weeyaan la sheegayay bacbaa ku wada xidhan de maya sheekadu iska wada jirtaa adu taada ka raac waan kugu soo laabani axmed haye fiican bay dood u socotaa waxaan dib ugu yar laabani waxaad moodaa hadalku meesha u dhimanayo in la yar difaacayo weli anuu dooda unbaa ku jirta ma garanaysaa qofku inuu saxaan baa muhiima waxba waalidka carabka ka wacwacinina waxa weeyaan gabadha iyo waalidkaba horta gabadhii wiilkaba waalid baa dhalay gabadhii miyaan la maamulin marka la leeyahay waalidku dambi male labadan contract heshiis bay la yimaadeen war guurkii baan heshiis ka dhiganaa marka labadii agreement haddii laga dhigo wixii oo dibadda lagu soo apply garaynayo dibadda waxa weeyaan lagu soo habeynayo dee maxaa dhaqanka halkuu tegey gabadhan iyo wiilkan baa horta reeraa maamula waalid bayna leeyihiin waalidku aabba keliya maaha xataa waxaad arkaya dad yar difaacaya xagga hooyadoo kule aabbaha iyo wiilasha israacinaya waxa weeye horta gabadhan iyo wiilkaba waalid bay leeyihiin waalidkaasoo ka kooban labadii mataqaanaay ilaahay ka alkumay dhalay hooyo iyo aabbo marka axmedow waxaad leedahay adigu carabka ka weecweecinne eedda waxa iskale waalidkaas kale anu hore baan u sheegay dhalinyartuna way leeyihiin wiilashu gabdhuhuna way leeyihiin waalidkuna way leeyihiin laakiin meelaha la difaacaya gabdhaha ayayaan aad loo difaacin waalidka waan ku wada dhex jirin
xagga waalidkan u janjeeraayo waalidka markay gabadha u tagtay tirinkaaba ay soo doonaya waalidkii waa inuu isagu mataqaanaaye uu ka hadlo haddii lacag badan ay reerka soo galayso waalidku aqli buu leeyahay isaga laftirkiisii soo isaga uma tagiiso reerkii labadii reer kama wada arrinsanayaan dee isaga laftirkiisu lacagtan inay gabadhani leedahay oo gabadhan dib loogu habayn oo gabadhan iyo wiilkan ay dan u tahay dee ma iyaguba gartaan ها marka waalidka u janjeeray waxa leedahay waa waalidka waalidka u janjeerayo markuu wiilkii lacagta gabadhi ku soo jeeyo waalidkiina u qaadanaya waayahay waxaan siinayaa Muscab waxa weeyaan waxaad moodaa in hadalka si fiican uu iskaga daba dhacayo laakiin boogaha laga tegayo ayaa badan markuu qof hadlaba qaar baa gacmaha xajinaya moogta waxa weeyaan laba qof baan la hadli lahaa waa tan koobaade nin weyn buu waraabo cunaaba la maqli jiray soo maa marka guurka laga hadlayo ninkaa weyn ee waraabaha cunaya la sheegayaa waa wiilka wax doonanaya weeyaan umal ama garadkaaba hal su'aal iga jawaabto oo ah waan ogolahay ama waxaad tidhiba intaa in ka badan baan u qalanaa okay waad u qalantaa wax walba rabtaba waad helay laakiin aan la xaq badan oo leeyahay baa jira oridaydaad noqon waaban ku hooyay gurigii baad gashay xaq ma u leeyahay inaan 2 3 iyo 4 anaan sii doortona xagga aan ka badsado dee dabcan haa laana adigu inaad nolosheena calafkeena jirayo boqolkiiba boqol mid adiguna aad kafaalo qaadi karta ma anaan kafaalo qaadi kara ma ka Muscabow adu waxaad leedahay haddii maanta lacag badan aan keeno waa inaan ku labeeyo oo ku saddexeeyo ku afreeyo hadiiba hantidii ay meel buuran ay noqotay yaanan laba jeer jabin waay marka waxaad leedahay haddii aan lacag bixinayo waa inaan koobeeyo labeeyo saddexeeyo aad intaan ku ka dhigo haddaan lacag yar ka bixinayo laakiin adigu ma kugu ekaanaya gabadhu ahmiyadda ay lacag waxa weeyaan saxaafiyadda lafteeda intii haweenimo qaaday laakiin aan ka rido waxa weeyaan haddaan hadalka koobo on jaro gabadhu markay leedahay qiimahaygu waa intaa dabcan walaashay haa waa intaa laakiin ana qiimahaygu waxa weeye bidakari inaan gursan karo 2 3 وربع وادين عدالة فلي كرو والدكو maxay isku difaacayaan waxa la yiri waalidkii baa u sababa marka hore wada salaamay waxa weeyaan waalidku waxa weeyaan wuxuu u dhaxeeyaa labada qof waa natiijada u dambaysa ee ogolaash uu ka imanayo heshiiskii labada qof ay soo galeen umbu isagu aqbalkeeda leeyahay laakiin taladu cid ay ka go'do ee istooranaysaay waa wiilka iyo gabadha runna isulama imanayaan nin walba dhankiisu iska sharaxaya oo dee dahab aad leedahay hoos looma dhigo nin walba dabeeca uun lahayn iyo hanti uun lahayn iyo waxbuu soo dhiganaya si aan dhaliil looga dareemin wiilka wax badan buu sheeganaya xaqiiqda laakiin waxaa ka wanaagsan in uu nin walba tabartii u ciyaaro ood marka horeba waxaa la yidhi noloshu ma aha ku deesho waa sida aad adigu awoodda aad leedahay inaad ku tallaabsato anagu waalid wixii iyagu ay ku soo heshiiyaan maanta oday kaliya oo gabadhiisa kalsooni ku bixin karo hebel baan ku sii oranaya ama wiilkiisa intuu u doono oranaya war gabadhaas ku soo diray inta kama ismacayso dhaqankii uu guuray marka heshiis ay wiilkiisa gabadhu la yimaadeen baa waalidka loola imanaya okay un buu saaraya waayahay Ismaaciil waayahay nimcaan siinaya hadan ka jawaabo walaalkayga anaga fadhiya iyo sheekhaas iyo aabaha laftarkiisa saddexda jawaabadaas ku tarsado waxa weeye waa runtii sheekhu soo sheegay khayr Allah siiyo culimadu in badan way hadlaysaa in badanna way doodayaan laakiin shay baa jira waqtigii iyadoo caafimaad badan uu jiro oo dhaqaatiirtii fara badan tahay oo la oran karin dhaqaatiir yaraan baa jirta haddana markii uu xanuun dilaaco wax campaign la yiraahdo baa jira oo lagu dhaqaaqo oo campaignka isagoo xaruntii caafimaadkii jirto haddana lagu taageerayo culays lagu siinay marxaladan aan ku jirnaa marka in campaign lagu baxay u baahan tahay oo culimada laftarkoodii waanu hadalnaa oo masjid baan fadhinaa in la yidhaa iyada laftarkeeda maaha waa in campaign lagu baxo ta aabaha haddaan sheego isagu waalid buu yahay waqtigii horena dhalinyar buu ahaa cadaadiskii badnaa ee soo fuulay uu garanayaa siduu kaga baxay marka aabaha laftarkiisu waa inuu la shargareeyo aabaha wiilka iyo isagoo aabihii gabadha waa in la isxoogsado haddaysan ka jiri jirin wadanka waa inay bilaabaan iyagu
oo yidhaahdaan adigu wiilkii baad dashay anna gabadhii baan dhalay war bilaash baan kugu siiyey kaxayso guri samays geyso taa laftarkeeda inay okay sii siiyaan iyadana waa qalad waayo nimco adigu su-aashaada ka daba tegayo jawaabtaada adiga haddii lagu odhan lahaa wiilkaasaan ku siiyey aabbaa ku odhan lama yeeli lahay haa waan ku qasbanahay inaan yeelo sababta waxaa weeye wixii waxaa la rabaa in laga caqabadii laga gudbo waalidkiina wuu jiraa wiilkii aan jeclaaday maanta ama adduun haysta ama adduun yuusan haysanin aabbuu ka dhashay aabbihii hadduu aabbihii kale u tago uu yidhaha labadii ubada way ogyihiin wax walba jacaylkaa ka weyn qofkii haddaad jeceshay oo lagugu qasbo oo la yidhaahdo maadaama jeceshay ama adduun ku raac ama marni ku raac waad ku raacaysa waxaad eegaysaa lacag maaha waa markii xaqiiqada laga hadlay wiilkan su-aashiisa haddaan ka jawaabo gabadhaa shuruud buu ku xidhay wuxuu yidhi adduun badan maadaama bixinayo waa inaan labaysto laba waxaad ku gaadhaysaa markii aad wadadii ku labaysanaysay soo marta wey gabadhan adduunkan aad ku doonayso inuu reerrida mooyaane laba ma samayn karo marka gabadhii adduun badan lagu doonaa xaqiiqatan inuu furniinku badan yahay baan u malaynaya haddii gabadhii nolol fiican lagu doonana inuu reerkaasi dhismayo kolley culimadan maxkamadaha ka shaqaysa waxyaabahaas garanaya marka wiilku hadduu leeyahay adduun badan maadaama bixinaya gabadh labaadaan helo wadadii tii koowaad buuna marinba rudwaan baan siinaya waad maqlaysid rudaano daadii kaa horreeyay iyo waxa kala qabsanaya hay wacyigelintu way socotaa oo laakiin wacyigelin ha jirto marxalad markii ay taagan tahay haddana de ina dhalintii lala jaan qaadsiiyo wey oo wacyigelinta ay ballaaranto tusaale gaaban laba kastoo sheekhani haddii suuradda wuu go-aamin karaa qiimaha meesha ku keeni karaa baan aaminsanahay oo de meherkii ma dhacayo sheekh la-aan soomaa markaa booska culimo diinku ay weli seegsan yihiin waa taa markaas rudaana waxaa leedahay goobta isla marka la taagan yahay ee labada ruux la isku meherinayo culimo diinku hay yidhaahdeen intan maaha intan ka daa oo de wixii hoosa nooga dhigan waayahay culimo diinku hoosa u dhigaan baad leedahay maxamed baan siinaya sheekh maxamedow waxaa la yidhi culimadii baa nagu dallacaysaba guurkii oo qaaliyoobaya bal haye bismillaah kolley sidaa laga shanqadhiyay walaasheen ay sheegtay anuu aan la qabaa marka horeba saan sheegay aad buu yani waa mutashacib waa wax aad meelo badan buu taabanaya hawshani maaha wax hal meel kaliya ah maaha qayb inay ka yihiin waan aaminsanahay culamada laftooda oy gaabis samaynayaan inkastoo meelaha la taabta ayna ahayn oo laba ruuxoo soo heshiiyey anu xaq uma lihin aan idhaahdo intan ka dhini intan ha ka dhimin waa heshiis labada ruux ka dhexeeya waa caqdi baa la idhahdaa waana heshiis laba ruux ay galayaan laakiin heshiiskuma anigu inaan yani u dhammaynayo un baan ahay laakiin labada ruux heshiinaya welibana uu weydiin intaasaa la yidhi gabadhi raalli ma ka tahay masaasaa wiilkana saas masaasay tahay kadib uu caqdigu u dhacaya xagga waalidka ayaan anigu in badan aan xoogga saaraya waalidku qaybo way isdifaaceen laakiin tusaalaan sheegay anuu aanu joogay wiilaan saaxiibaan nahay baa gabadh doonay gabadha waxbay ku heshiiyeen waa inay iswaafaqeen dee dadku reer waxay leeyihin reer walba oday bay leeyihiin oday aabihii wiilka aabihii baa odayaashii qayb ka mid oo dee raggii raacayay ahbaa hebel bayna raacayaa la yidhi duqii baa soo fadhiista wuxuu yidhi reer hebel baan u tegaynaa maxaynu geynaynaa waxaa la yidhi wiilka gabadhu ay soo heshiiyeen lacag intaasay ku soo heshiiyeen maxaan qaadaynaa buu weydiiyey muxuu ahaa wixii la odhan jiray gabaati iyo guntinti iyo wixii waxbay sheegeen wuxuu yidhi anuu hebel ah kama qayb galo waxaa lagu bixinayo haddaan intaa la qaadaynin oon reer hebel aynaan intaa u geynaynin anuu idinma raacayo waa waalidkaana u yeedhay waalidkiina waxay wiilka ku khasbeen in ay khasab ay raacaan waxa uu sheegayo duqii uu sheegayo la raaco xagga waalidka oo xagga hooyada waxaan garanayaa hal dhacdoo kaloo dhacday wiil baa guursaday weliba dadkan dowladda iyo iska hantidaa iska soo qaadanayu ahaa guurkiisii waxaa kaga baxay welibana waa hore hadda ma aha oo lacagtu ay qiimo lahayd lacag 150 kun kaga baxay meherkiisii doonitaankiisii ayuu reerkii wuxuu geeyey 100 kun hooyadii waxay ku tiri gabadha dhashay lacagtan hooya aad keentay anagu waxaan idinku talagalnay 300 in idinku baxdo 200 baad keentay 100kiiba yacni 30 ma aadan keenin marka fadlan la noqo soo shaqayso haddii aad soo gaadhsiis 150 kale aabaheed waan ka qaadi karaa marka qayb inay ka yihiin waalidku halkaasi ku caddahay waalidku qayb weyn bay ka yihiin qaybta labaadna soo galayana waa ragga weyn waaye waxaan siinayaa fadxa
waxa la yidhi eedii waxa le dumarka weli way socotaa doodu hay sidan horeba usoo sheegay yani eedaydu 3 qaybood ayay taabanaysaa 3daas oo u badan xagga dhinaca ragga guri walba aaba ayaa ka mas'uul ah inkastoo hooyaduna ka qayb qaadan karto hadday hooyadu qaldan tahay tiraahdo gabadheeda lacagta laga keeno way u diidi karaan waxaan lacagta bixinaya waa wiil gabadha doonaya iyo aabihii soo raacaya iyo aaba ka qaadanaya marka ragga sabab oo ay iska daayaan ma leeyahay gabdhahana maxay dhahdayay wiilkan hadal uu yiri baan si yar daba socdaa wax yar ana waqti ka faa'iideysanaya Muscab wuxuu ku yiri wad isqaaliyeysay aniguna marka waa inaan maadaama adigu isqaaliyeysay aniguna labeeyo micnaheedu ma aha haddaan isqaaliyeeyay inaad adiguna labeynayso waxa la rabaa waa dan reer in laga wada doodo haddaad laba iska daaya 4 xataa mas'uuliyadeeda qaadi karto ood kafaalo qaadi karto tii u koobaad baabad qorshaheedii la fahmi laayay seed u awoodaa inaad to afraad iyo to labaad aad sii sheegto iyagu maadaama ay rag yihiin haddii yiraahdeen hayntayadii waa intaas ay kuu soo bandhigaan adigu ma yeeli lahayd diyaar baan oo hay shilin ma istaxaata hadduu idhaho inaan waxa maxay dhahdayay uu yiraahdo waxaasaan awoodaa horta run hadii la isku sheegayo dajiye sideedaba la isma diido muhiimadu waa runtana ha ku dhaqmanayna madayo gabdhaha kolka hore yaanay u sheegin wax aanay iyagu ahayn waayahay dumarkii miyayna iyaguna beentaa inay ka qayb qaadanayaan miyayna kuula muuqano iyaguna loo leeyahay 100 nin bay telefoonka ku haysataa marka saa lagu leeyahay 100 nin haddaan telefoonka ku haysto wiil aan guriga u joogaa ma jiro nasiibkaygana ma aqaano mid uu yahay isaguba 100 hablood buu ayuu telefoonka ku haystaa marka waxa ayaa lagu mashquulinay muhiimadu waa kalsoonida iyo labadan qof ay istoonaysa mar hadda sheekadu guur soo gaadho 100kii kale way iska hadhayaan waayahay eeg adu waxa tiri kuna waan la sheekaysanaa kuna waan ka guursanaa iyaguna markaa miyayna aanad islahayn xaq bay u leeyihiin inay been kugu sheegaan kugu soo xirigeliyaan jacaylkooda iyagoo si yar guda raacayso maya ilama aha inay xaq uma laha inay been ii sheegaan waayahay waalidkaan siinaya waxaan siinaya Mukhtaar baan siinaya hal arrin aan ugu noqon doonaya ninka doonaya gabadha inuu bilaash ku guursado hooyadii bilaash ma lagu guursaday waa maya hooyadii xoolo badan laga bixiyay talabaad ninka markuu rabo inuu warshad iibsado lacag badan ka bixiyaa gabadh gashaanti waa maal gasho weeye waa hanti ka bixi si ay kugu taranto oo taran ugu heshid iyo dadnimo ehelka heshid macnaha marka waxa raqiis ku soo galaa raqiis buu kaaga baxaa waxa laakiin adag ku soo galaa si fudud kaaga baxayo xaqiiqan dibadda markaad iibsato waad adkaynaysaa meel adag baad dhigaysaa macnaha laakiin haddii ay waxa weeye meel ilaa ka heshid kuma adkaanayo marka saa daraadeed gabdhaha waxa weeye waa la soo koriyey waxbaa la soo baray waa la soo barbaariyey waalid baa dhalay xaqi xuquuq baa lagu leeyahay iyadoo wax badan ba la raadinayn ducada waalidku horta xaq bay u leeyihiin talabaad ninka marka horeba aan shaqaysanayn inta dadweyne raadinaya ama dawlad raadinaya wuxuusan lahayn shaqo keenaya marka horeba inuu reer dhaqan diyaar umuusan ahayn gabdhaha yuusan beenu sheegin waayahay daawadayaal xaggaad nagala socotaan waa shaashada telefishinka caalamiga Naba TV iyo barnaamijkeennii dooda Naba TV oo toddobaadkan ku falanqeynaynay yaa sabab ah guurka qaaliyoobay Mas'uud baan siinaya bismillah waan soo koobi doonaa wax yar waxaan isku soo yar koobaya muddo kooban gudaheed adeero jawaabtiisa gabadhaas dambiye ninka walaalkaya ha jawaab aan bixinayaa doodoodii way dhiibteen in yar tusaale oo gaaban oo dhiibi adeero wuxuu yiri qofku in markuu diamond buu iibinayaa in suugu halgamaa inuu bilaash ku qaato dawaayaha adeeray hadday saas tahay diamond adiga iibisay shalay tolo in biri tolo guriga kugu soo noqoto waa mid aad raali kala ahayd markii horeba ta kale waxaan oran karaa gabadha walaasheena waxay tiri ninkaas walaalkeen ka horeynaya kalsoon weynay jirtay buuri kalsoon la'aan ma jirto walaalo laakiin gabdhihii baa wana dhaafsan ba anaga oo iyagii baa waxay doonayaan alternative ku jiraan hal tusaale ma xulasho badan bay ku jiraan anu kalsoonidii halkii baan la taaganay laakiin korkaxaasi badan bay wadaan oo dhowr jeer bay soo taataabanayaan meel kale oo naweyn taas waxa tusaale yar kooban baan sameeyay waxa jira wiilan saaxiibnahay waa laba qiso the same person is laba qof oo saaxiibada ay ku dhacday midna shaahidan baan ahaa midna walaalkay bay ku dhacday oo iga sheekeeyay wiilan saaxiibna walaalkaya labadu waxay ahaayeen waa laba wiil oo dhalinyaro waxay isku waafaqeen waxay isla go'aansadeen inay guursadaan waan si jamaacan uga sheekin doonaa labadu waxay mar go'aansadeen inay guursadaan ama mid kamid ah soo qaadan doonaa wuxuu damcay inuu guursado kadib gabadhii bala soo fariistay wuxuu ku yiri walaal shaqaale dawladeed baan hay lacagta 90000 ayaan hayaa muddo inta lag baan shaqaysanayay oo iska garan kartaa shaqaale dawladeed harkiisa waxaan rabaa reerkiina aan dhameysano waayahay bay ku tiri xaafadii bay ku noqotay waa u sheegtay waa sax bay ku tiri laba cisho kadib waxa lagu ballamay in la keeno maxay horumarintii way la soo hadashay
horumarintii maad qaadeen may isug bay ku tiri waa inaan kulana arrin degdeg ah soo baxday way ku soo noqotay waxay tiri xaafaddii markaan hooyada iyo habaryaraday la tashaday waxaa la yidhi dee 90,000 maanta waxba ma jirtay waad arkaysaa wax ku soo dar oo maxaan ka dhigaa 100 ku soo buuxi soo 100 dee walaal waad arkaysaa xaaladeedii saan ahaye halkan ka keenaa waad xanaaqday intuu ka daba hadlay buu yidhi bal 100 anaa buuxini maalinkii kale iyadoo la geynay haddana ku tiri sug wala soo hadashay wallahi shaahidan baan ah waxay ku tiri niyahan waad arkaysaa maanta xaaladda adduunku suu isku bedelay alaabtii suuqi markaan galnay wada qaali bay noqotay ilaa 115,000 iyo 15,000 oo dad gabdhaha raacaya make-upkayga ilaa 130,000 waa caadi waxaan su'aal haddaba ay ka taagan tahay anuma gabadhan raba inaan guursado mise habriireed iyo hooyadeed eego su'aal lamadin loo baahan yahay in la isweydiiyo gabadhu waa inay aniga wixii ay jeebkayga midda kale wuxuu yidhi waa aabo wax la soo shaandheeyin baa anaga nolol yimaada waa been weeyaan wax la soo shaandheeyay haddaan gudbino proposalkaas aan saxiixnay halka dambe laga qaldaya wax la odhanaya uu yar yahay ee kordhiya ama ku biiriya labadaas siyaabood annaga waxaa nagu soo noqonaysa feedback anagu waalidkii daylan ma aprof garanayo oo waxay labadii waalid iska day habaryari iyo wax sii maraysaa yeedo marka aan waxaan u aanaynayaa gabdhahani horta adduunku wuu isbedelay oo saaxadu waqtigii hore lama joogo waa inaan hadba saaxadan aan jirno horta markuu qofku guur samaynayo bulshadu abuurayo ma taqaanaa baahida ugu weyn ee adduunka taalu ilaahay abuuray waa baahida jinsiga oo jinsi kale u qabo labi didiga isku qabaan waxa ilaahay baahi adduunka abuuray baahidaas ugu qaalisan baahidii in lacag laga dhex raadiyo halkii la isku hadiidin jiray wala lacag laga dhex raadiyo aan horta ku khalad baan u arkaa talabaad maxaa dhacaysa saameynta yeelanayso bal hal waalidkiina inala fadhiya inta yarba kaga faa'iideysanaya haddii ay sidan ku sii socoto maxaa dhici doona research bay maalin dowladda sameeyeen qolyahan gaalada reer Yurub waxay research ku sameeyeen filmaantan anshaxumada wadamada ugu badan ee daawada Mareykanku wuxuu noqday wadanka saddexaad wadanka koobaad waxa noqday haddaan idinku xitaa idin sheego ma aaminisaan wadanka koobaad ee filmaanta anshaxumada daawada wuxuu noqday Saudi Arabia sababtu maxay tahay Saudi Arabia waa la kala kalantiray gabdhihii iyo ragga waa la kala kalantiray xataa calaf aan isma raadsan karaan gabadhii ma shaqayso gabdhihii xaafadooda si joogayaan kadib maxaa dhacaysa qofkii dhalinyaradii ilaa shahwaad buu ilaahay ku abuuray inuu ku dayo makhaarij aanan kiisii saxda ahayn ku guto shahwaadkiisii ilaa wixii bilaadan baan nahay kadib halka maxaa xumaanaya koritaankii bulshadii baa khasaaraya cilmi booldirna wuxuu yiri dumar muunadeed waa inay mehersanaataa buri madadaaladeed waa inay maqasha raacdaa maamuus jabteed waa markay fiidka meertaa buri bal u fiirsada dumar muunadeed waa inay mehersanaataa gabdhihii meherbad wada diideen maanta xaafadii wada joogaan markay mehersantahay way dhowrsanaanaysaa markay mehersantahay way dhowrsantahay gabadhii oo laguma soo saqajaamaya mar way noqonaysaa way calaamadsan tahay madadaaladeed waa inay maqasha raacdaa waxay sharaf iyo maamuus ku leedahay madadaalo ku qaadanaysaa inay xaafadoodii iyo reerkooda u shaqayso maamuus jabkeed waa markay fiidka meertaa bal maanta gabdhaheena ku noqdo saddexdaa misaalo midkay ku jiraan haye waxaan siinayaa mukhtaar bismillah horta maaha waalidku in dhibka loo geysto leeyahay macnaha waalidinta ka dambaysa waxaysan dhalinyartu keenin waalidku ma yimaadaan waxa jirta qasay yar oo aan kubjoog aan ku ahaa dhacday oo dadkii wax ka galay aan kamid ahaa macnaha waxa la qasada jiirka qasad dhacday bay ahayd oo qoysku kala tagay aba ku dumay marka hore wadan xaga balaadhan qoysku ku taagnayn in dubaa way fududahay waxaan ay wiil baa gabadh soo doonay moogto lacag fiican ka bixiyay dabeetana waa aroostay markii caaw la soo galbiyay xataa wuxuu iibiyay daab tira badan buu iibiyay waxa jirta marka qofku la soo hooyo inta badan waxa dadku wada guriga degan soo daabkii iska dhigtay waxay dhigtay katamaan hoostiisa dhigtay macnaha alaabta dhigtay dabeetana waxa uu yimid jiir saacadii dambe silsi ugu weynaa yoga dhaqaada dabeetana gurigu la galay meel luuq la galay meel yar ba ka qabsatay hadday waag bariyo qorax soo sameysay soo meesha timi arosna leeyahay daabkii weyday sida daabkiisi intii kala tantaaleysna ma arag soo war wada aragtay tub caaw ana ku soo heeday dibay xadde siin ku aaminaya macnaha naan dahab kaan xadine ana ku iibiye xinacabeen ay raadso hadii gurigi baad ku too weyday waxay aqoonsatay ninkan dahabka inuu ka xadayba dabeetana arintii ba fogaatay hatta waxay gaadhay waalidkii gabadha macnaha soo ninka gabadha caawin waxa loo soo yeedo dahabka xaday ninkaas la aabin kara qoys noqon kara abar metel kara waa may arintii dadkii loo yeeray ban kamid ahaa haddaan guriga soo fadhiisanay dad ba guriga waxay eegay Soomaa meel yar marka bil ka tiray macnaha wabal eego wallahi wax ka soo kala laadaa wixii dabeetana waxa loo yeeray gabadha aabaheed gabadha waxay ku dhaartay in dib u noqonay dabeetana alaabtii soo dejiyay aabaheedna loo yeeray idin loo yeeray idinki wuxuu ku xilfay inuusan orida meesha gabadhaas u noqonayn macnaha samir la'aanta maanta Soomaalida haysata iyo kamid tahay wax la hel kala ma la waay karo
marka hadduusan qoysku marka hore caga ballaadho uusan ku joogin oo aysan qofka gabadha guursanaysa aysan hayn mid ay dhab iyo baal u taqaano akhlaaqiyadkiisa dhaqankiisa diintiisa iyo noloshiisa iyo qofka ku maareyn karaa wax waa la heli karaa xataa waa la isku curyaami karaa qofka shaqo caafimaad ku jeclada biri curyaa noqon kara macnaha haddaan samir iyo dulqaad jirin waxaa magaagayaan marka qoysku waxaan dhalaa marka hore gabadhu ha ka dayda ninka guursanaya ama ay guureynayaan ha ku raacaan akhlaaq iyo ku raacin dhaq ay ku raacin maxaan ku dhahdaa qurux iyo maalmid aan lagu raacin qasabna maaha lacagta la doonayo in la keeno qasab maaha annagu haddana waalidna waxaan jecelnahay ninka gabadha naga dhaqanaya inuu yahay wax u yunaagsane in ay raalli ka taanaan duco ugu dareena macnaha wixii uu nolol yimaadana ku qanacsannahay annaga waqtiga ka faa'iideysano waqtiguna hayo bal haddii guurku sidaas uu u qaaliyoobay uu ku sii socdo yuu saameyn ku yeelanaya adiga waqtiga nooga faa'iideynaya noo soo koobaya 80% dadka danyarta ah dadkaan caamilka ahayn dadkaan shaqayn dadkaan ehel buuran lahayn dadkaan dibadda lagu maqnayn intaasoo dhan wuxuu ku dhameeyay saameyn waxa xumaan doona oo badan doona fusuqa badanaya annagu haddana waalidkiinahay waxaan u sheegay dhalinyarada inaysan naga gabanin gabadhu ninkay jeceshahay gabdhaan lay anigu aabana wiilna wala gabdhaan leeyahay waxaan jecelahay gabadhaydu in aliya ninka doonto yaan adduuniga keenin aaba ninkan aa wataa wallahi alcadiim lagu meerinaya diyaar baan lahay macnaha adduun xulbinta kama rabo way aad iyo aad baad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay waxaan siinayaa umal khayr haddii uu guurku uu sidan uu ku sii socdo oo uu qaaliyoobo idinkoo weliba nilii aaneynaya inay dumarku ay u sabab yihiin doodda xaggan ka dhacday in aad la socoto dee goobjoog u ahayd yuu saameyn ku yeelanaya ayay kula tahay adoo noo soo koobaya waqtiguna nahayo anoo ka faa'iideysanay hodani fursadan in horta laba dhinac baa saameyn ku yeelanaya raggiina uu ku yeelanayaa oo maad aragtay raggii mashaqaystayaasha ahaa ama guri joogta ahaa dabcan sida dumarka ayaa maad aragtay meel ku dhacayaan caadi ahayn hablihiina sidoo kale hablihiina guur la-aan baa dhacaysa dabcan oo iyagana wax guursanaya ma jiraan maadaama ay raggii ay bilaa kharash yihiin guurkiina uu qaali noqday kolley ka barakacayaana waa rag baan leeyahay dabcan maad aragtay guurku aadka saameynta ku yeelanayo waxaan siinayaa maxamed haye adoo waqtiga nooga faa'iideynaya yuu saameyn ku yeelanaya waxaan isleeyahay horta guurku inuu qaaliyoobo mujtamac oo dhan buu saameyn ku yeelanaya cid keliya kuma saameynta kuma koobnaanayso waxaa laga shanqariyay dadka danyarta keliyana uu saameyn ku yeelanaya ma saan aaminsana sababtoo guurku cid walba meel buu taagan yahay ka hantiilaha laftiisa uu ku culus yahay oo nin haddii 20 kun soo keen la leeyahay ninna waxaa la leeyahay 1 milyan keen marka meel xad uu ku joogsado ma laha si guud wada saameynaya waxyaabaha uu saameynta keensan waxa kamid ah oo hadda badan waxa weeye in waalidkii iyo markii la kala aaminaad baxo meherxad wax la yiraahdo inay meherxado waxa taa ka dhalan in gabdhihii si aan fiicnayn loo dhaqmo gabdhaha fara badan oo waxa jira iskoola dhigta oo la qabo goobo meel dhigta oo la qabo xaafadoodiina ka ah gabadh way badan yihiin marka dambana waxaa ka dhalanaysa taas in xumaantii lafteeda lagu dhex qarsado oo inta xumaan la sameeyo marka dambana la yiraahdo waan ismeherxadnaa niraahno aan ku isku asturno marka saameyntiisu dhinacyo badan buu yeelanayaa waan isleeyahay tiguna nahayo aad noogu soo koobaya Axmedow aduu guurka qaaliyoobay uu sii socdo waliba inta badan loo aaneynaya inay raggu ka mas'uul yihiin guurka qaaliyoobay adigu bal yuu saameyn ku yeelanayaa basla adigu noo soo koobaya horta guurka qaaliyoobay saameyn wuxuu ku yeelanayaa mujtamac oo dhan buu ku yeelanayaa taranka laftarkiisa saameyn buu ku yeelanayaa waayo guurku waxa weeyaan wuxuu inaga muhiimad wuxuu inoo leeyahay dee horta ugu horreynba waa taran dadka inay tarmay bulshada taranto waxyaabaha mataqaanaa nabiga sallallahu alayhi wasallam hadhow toole oo ambiyada kale ugu faani doonana de waxa kamid ah mataqaanaa taranka ummadiisa in ummaddu taranto marka waa mid iyadu meesha taalo laga maarmaana weeyaan sidoo kale waxay saameyn ku yeelanaysaa oo badanaysa waa macsiyada badanaysa labadii dhinacba tahriibta badan labadii dhinacba bilwada badan labadii dhinacba dhan walba saameyn buu ku keenaya haddii xagga waalidkii tahay shan ablood ama afar ablood oo ugu waaweynaaday gurigii dhibaatadooda waad garan kartaa iyo shan wiil oo sidoo kale isku gaaray marka gurigu waa digirigasho qofku markuu koro uu tabac soo galo inuu isaguna beritoole hooyo noqdo ama aabo noqdo isaguna mujtamac kale uu hogaamiyo weeyaan marka waxaas oo dhan baa la waayaa saameyn guud buu ku sameynayaa bulshada oo dhan waayahay aad iyo aad baad mahadsantahay Axmed nimcaan siinaya haye nimco adiga waqtiga nooga faa'iideynaya ayuu saameyn ku yeelanaya guurku in hadii uu si qaaliyoobo guurku sadar imika uu yahay sarakac ku sameysmo guurka yuu saameyn ku yeelanaya basleeda bismillaahir rahmaanir rahiim wuxuu saameyn ku yeelanaya laba waalidkii marka horeba inuu qaaliyeeyo saameyn u lahaay xalkeeni waayay saameyn ku yeelanaya gabdhiina saameyn ku yeelanaya markan bulsho fara badan ceeb u tahay
inay meeshiisina ka dilaacdo oo fawaaxish yimaado ceeb bay ku tahay wiilkii laakiin maanta faqiirka ahaa aan waxba haysanin markii loo diido uu gaari kari waayo shahawaadkiisii gabadh buu ku gudanayaa badanaa shahawaadkaa dhacayana ceebtu waxa raacaysaa waa gabadha gabadhii marka xoogii u weynaa iyo ceebtii u weynayd iyo maskax burburkii wixii gabadha bay ku dambaynaysaa gabadhiina waalid baa la nool waalidkii laftarkiisa labaan u kala qaadayna hooyadii iyo aabihii markan sumcaddii iyo wanaaggii waati la lahaa aabihii baa taageeraya markana hooyadii baa cadaadis ku imanaya oo waad aragtay haweenku markay sheegsaneen hiblaayo gabadheed way xumaatay marka haddii ay saas tahay waxa uu ku imanaya waxa weeyaan waa gabadhii iyo waalidkii weeyaan waaya aad iyo aad baad nimco u mahadsan tahay Ridwaan baan siinaya isagoo waqtiga nooga faa'iideynaya haye bismillaahir rahmaanir rahiim sida walaaluhu ay hore uga soo dhawaajiyeen guud ahaanba bulshada kulli tasaameyn uu geysanaya hana ugu badnaato dhalinyarta oo waalidku markiisa horeba iska meeleysnaay dhibaatada ugu badani waxa soo food saari doonta dhalintii baahanay salaamu alaykum waayahay Ismaaciil baan siinaya marka guulkoo sii qaaliyooba wuxuu saameyn ku yeelanayaa bulshadii diintii dhaqankii iyo sumcaddii bulshadoo dhan waxaa furmaya in ay macsi iyo jiilkii soo kici lahaa oo habaaba iyo dhaqan xumo iyo moraal burbur intuba ay keenaan markaas waxaan leeyahay waa in diintii iyo dhaqanka aan ahayn loo soo noqdo si loo badbaadiyo jiilka berito imanaya waay aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaan siinayaa Asma haye adigoo Asma waqtiga nooga faa'iideynaya waqtigoona haya darteed yuu saameyn ku yeelanaya dumarka waayo dumarku waji hore mooyaane waji dambe ma leh inantii haddii waqtigii hore ka dhaco waxaa isku imanaya intii hore kacaysay intii dambe kuwii oo dhan jiilkii oo dhan bay soo gaadhayaan markaa saameynta ugu badan wuxuu ku keenayaa dumarka waayo ninku 100 jir wuu ku dhalaa laakiin inta 40 jir kuma dhasho marka wuxuu dhibka saameyn weyn ku keenayaa dumarka marka waxaan oran lahaa dumarka ayuu ku keensan saameynta weyn dumarku ku keenayaa waayo dumarku hadduu cimrigeedu weynaado ubadkii ma keenayso laakiin ninku hadduu sii weynaado ama dan haysta ma yahaysane wuu dhalayaa marka waxaan oran lahaa bulshada isku duubnideeda awqaasha bay inaga hooseeyaan inaga hoos looga dhigaan si la isku raacsan kiba u sabab in guurku qaaliyoobo marka adiga ka ahaan maxaad kula talinaysaa bal dumarka ma waxaad leedahay guurka hoos u dhiga sayna waqtigu inooga dhicin ha waxa weeyaan waxay guurka loo qaaliyeeyay alaabtii ninkii loo diiqiyay iyo qaaliya marka isaga dhigal gu miirayaade isoo keena wixii loo diiqi lahaa laakiin alaabta la diiqayo ma ninka lacagta laga soo qaado mise gabadhigan hore la qaaliyeynaya gabadhigan hore la qaaliyeynaya isaga hadana bulshadii kala qaadanayso oo markii gabadhi loo soo fariisto la qaadanaya oo waxba kama soo gaadhay waalidkii marka waxa loo qaaliyeynay waxa la soo balway inantii wax loogu diiqo in la helo waayo dad dan yaraa jira dadku way isku xir dhigtaan oo ruuxa lacag la wax loogu daraa marka waxa jira bulsho dan yara oo inantii loo diiqiyay loo hayn marka waxa la si la isku raacsan yahay haday noqoto ninku inantu wuxuu ka keeni karaa keeno marka halka haysto gurigiisa wuxuu dhigan karaa dhigto saasi noqon lahayd laakiin iyaan la oranay sidii inantii hore loogu soo diiqo kaliya lagu soo diiqo rag iyo dumarka wadibtu way ka jirtaa marka waxa la ninku inantiisa gabadhu gursaha ka haysto oo gurigiisa wuxuu ilaahay ku sii hadhigto aad iyo aad baad mahadsantahay Asma haye fadxa igu dhiib waqtiga ina haya ka faa'iideyso waayahay بسم الله horta sida la wada sheegay way walaalihiin ka wada shanqiriyeen waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa mujtamaca dhamaan ha noqoto jiilka dambe soo koraya dadka hadda dhalinyarta ah iyo maxay dhahdayay bulshada kalaba marka aan waxaan dhihi lahaa maadaama saameyn nagu wada yeelanayo ruuxba in bay u taagan tahay haweenka qayb uga yeelanaya bulshada qaybadeeda kala duwan dhamaantood uu saameynaya ha ugu badnaato inuu dhaqan habow iyo diinteeni iyo halis gashay ay meesha soo galaan marka waxaan dhihi lahaa arintan hoos loogu noqdo hana loo sara kaco hana la isku raaco bal xal laga gaaro insha Allah aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ka soo qayb galayaasha toddobaadkan igula falanqeynayay stuudiyaha Nabad TV ee ka soo qayb galay dhalinyarta kala duwan ee lab iyo dhidig iskugu jirta aqoon-yahaninta waalidiinta iyo culimada aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa guud ahaan daawadayaal waxaan intaas ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni dooda Nabad TV oo aad toos uga daawanayseen shaashada telefishinka caalamiga Nabad TV muuqaalada quruxda badan leh waxa idin soo gaarsiinayo naga mahad celinayaa walaalahay Bile Cabdiraxmaan iyo Hodan Xasan iyo Nimcaan Akhyaar habaynta iyo farsamadu waa injineer Nuruddin Faad barnaamijka waxa idin soo saartay idinna socodsiinaysay anigoo Hodan Khaliif Ahmed Hodan Dejiya barnaamijka xigeentina iskugu imaanayno aniga iyo dhalinyarta kala duwan iyo culimada diinka iyo waalidiinta waxaan kaga tagnaa sidaas iyo amaan Allah